boqolka maalmood ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada 2 August ee sanadkan 2022 isagoo xubnihii uu magacaabay ay ka mid ahaayeen mas'uuliyiinta wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha. xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya. Aamina Xasan Cali wasiiru dowlaha wasaaradda. Cabdixakiin Jimcaale Aadan wasiir ku-xigeenka wasaaradda. hoggaanka cusub ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxay ka mid ahaayeen xubnihii golaha wasiirada ee la dhaariyay 7 August 2022. 13 August 2022 wasiirka wasaaradda xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye ayaa si rasmi ah xilka kala wareegtay wasiirkii hore ee wasaaradda Xaniifa Maxamed Ibraahim. 15 August 2022 waxay kormeertay dhammaan xafiisyada wasaaradda. ujeedka kormeerka ayaa ahaa dardargelinta shaqooyinka hortabinta leh. waxaa halkaas ka bilowday safarka shaqo ee rasmiga ah. sidoo kale waxay warbixinno ka dhageysatay agaasimaha guud, agaasimo waaxeedyada, madax qaybeedyada iyo la taliyaasha wasaaradda. 16 August 2022 waxay kulan la qaadatay hay'adda TIS oo xiriir shaqaale leh hay'adda Mareykanka ee USAID. waxay dhinacyadu ka wada hadleen shaqooyinka ay wadaagaan iyo waxyaabaha in horey loo dhaqaajiyo ay tahay. 17 August 2022 waxay kulan kala qayb gashay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. kulankan wuxuu ku aadanaa haweenka, nabadda iyo amniga. waxaa kulankaas ka qayb galay qaar ka mid ah haweenka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. muhiimaddu waxay ahayd in haweenku ay qayb ka noqdaan dagaalka argagixisada qawaariijta lagula jiro. 20 August 2022 waxay xafiiskeeda wasiirka ku qaabishay iyadoo ay weheliyaan wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda. mas'uuliyiinta hay'adda UN Women waxayna ka dhageysatay warbixinno la xiriira halka ay marayso wada shaqaynta wasaaradda ay la leeyihiin iyo sida la iskula jaan qaadi kara intaba. 22 August isla sanadkan kulan ay goobjoog kala ahaayeen wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka ayay gaargaar ula qaadatay agaasimo waaxeedyada wasaaradda si ay ula socdaan halka la rabo in la gaarsiiyo wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha iyadoo la raacayo aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo fulinta ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre. isla habeenkaas waxay ka qayb gashay wasiirka madasha abaalmarinta sanadlaha ah ee habeenka dhiirigelinta haweenka waxaana soo agaasimay xafiiska gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar. dhacdo ay dhammaan ka qayb qaateen dadka u ololeeya arrimaha haweenka ayay taasi ahayd abaalmarinana la siiyey haweenka waxgalka u ah bulshada Soomaaliyeed. 23 August 2022 waxay goobjoog ka ahayd barnaamijka kulan wadareedka golaha wasiirada. waxaa lagu soo bandhigay waxyaabaha ay diiradda saarayso xukuumadda dan qaran ee uu hogaamiyey ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. 25 August 2022 waxay qayb ka ahayd wafdi uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo safar shaqo ku gaaray magaalada Beledweyne. waxaana ujeedka uu ahaa dardargelinta kacdoonka shacab iyo dagaalka ciidamada dowladda ay qawaariijta kula jireen. 27 August 2022 wasiirku waxay qaabishay mas'uuliyiin ka kala socotay UNSOM iyo UNICEF oo ay hogaaminaysay ku-xigeenka dhanka siyaasadda ee SSRG-ga qaramada midoobay haweeneyda la yidhaahdo Kiki. kulankan waxa uu daaranaa shaqo kala qaadasho oo ay ugu horeeyaan arrimaha haweenka iyo xuquuqda aadanaha. isla maalintaas waxay la kulantay qunsulka safaaradda Sweden ee Soomaaliya Johan Zevenson. dowladda Sweden shaqooyin badan oo ay ugu horeysa qaraarka 1325 ee haweenka, nabadda iyo amniga ayay kala shaqeeyaan wasaaradda. waxaana qorshe u ahaa in Soomaaliya ay si wanaagsan u dhaqangeliso waxaana uu soo bilowday sanadkii 2005 oo Denmark ay bilowday. 28 August 2022 xarunta safaaradda UK ee Xamar waxaa kulan isxog waraysi ah ku qaatay safiirka dowladda Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya haweeneyda la yiraahdo Katie Foster. waxaa diiradda uu saarnaa sharciyada u baahan dhamaystirka iyada oo lagala qayb qaadanayo wasaaradaha wada shaqaynta wasaaradda la leh iyo abaabulka shirar bannaanka ah oo lagu xaqiijinayo yoolalka la rabo in la gaaro. 30 August 2022 waxay la shirtay wasiirka wasaaradda haweenka xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye xubno ka socday hay'adda Save the Children
waxaana kulankan ujeedkiisa uu ahaa arrimaha carruurta, xuquuqda carruurta iyo sidii loo xoojin lahaa sharciyada carruurta iyo siyaasadaha carruurta. isla maalintaas waxaa xarunta dowladda hoose ee maamulka gobolka Banaadir ay kulan kula qaadatay haweenka caasimadda oo lafdhabar u ah hannaanka dowladnimada Soomaaliya. kulankaas waxaa goobjoog ahaa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir. waxaa lagu go'aamiyey in wadajir ay u shaqeeyaan haweenka, taasna lagu gaari karo himilooyinka la hiigsanayo. habeenkaas waxaa shir abaaraha oo ay ka qayb galeen xubnaha guddiga gurmadka iyo bulshada rayidka shir gudoomiyey ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac. xubnaha guddiga ayay qayb ka ahayd wasiirka wasaaradda haweenka, horumarinta iyo xuquuqda aadanaha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 31 Agost 2022 wasiir Khadiija Maxamed Diiriye waxay kulan la qaadatay hay'adda UNDP oo ka mid ah hay'adaha wada shaqaynta la leh wasaaradda. waxaa dhankooda hogaaminaya madaxda Soomaaliya ee UNDP. waxaa la isla gaaray arrimaha horumarinta in wadajir looga shaqeeyo. 1 Sebtembar 2022 kulan shaqo wadaagis ayay isugu yimaadeen ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, waxaana uu ku soo beegmay soo shacbaxa dagaalkii dib u xireynta ee sida xawliga uga socda gobolada dalka. waxay ka wada hadleen kaalinta dagaalka iyo haweenka Soomaaliyeed. sidoo kale isla maalintaas waxay booqatay xarunta SWDC oo ka mid ah goobaha xilli dheer looga shaqeynaya danaha haweenka Soomaaliyeed, waxaana mas'uuliyiinta xaruntaasi ay ku dhiirigelisay in ay si ambaqaadaan howlaha u qareemidda bulshadooda. 4 Sebtembar 2022 xarunta safaaradda Imaaraadka Carabta waxay kula kulantay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye Maxamed Axmed, safiirka safaaradda, waxayna ka wada hadleen oo ay ku gorfeeyeen kulankaasi sidii dowladda Imaaraadka ay gacan uga geysan lahayd arrimaha haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha iyo iskaashi wadajira sidii loo sameyn lahaa. 5 Sebtembar 2022 ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa daahfuray qorshaha qaran ee haweenka, nabadgelyada iyo amniga. waxaa goobjoog ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Saadiye Yaasiin Xaaji Samatar, wasiirada wasaaradaha wada shaqaynta la leh wasaaradda haweenka, dowlad goboleedyada, maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada rayidka, iyadoo maalintaas tiyaatarka qaranka ay fadhiyeen haween gaaraya 1500 oo qof, halka internetka ay kala socdeen hay'adaha iyo safaaradaha wada shaqaynta la leh. 6 ilaa 12 Sebtembar 2022 maalmahaas waxay safar shaqo ku joogtay magaalada Abu Dhabi ee isutaga Imaaraadka Carabta. wasiir Khadiija Maxamed Diiriye waxay halkaas uga qayb gashay shirka haweenka nabadda iyo amniga ee dalalka jaamacadda Carabta. kulan duceedyo waxay la qaadatay madaxa fulinta UN Women, wasiirada dhigeeda ee Yemen iyo Suudaan. ugu dambeyn maalintii 12aad ayay dib ugu soo laabatay magaalada Muqdisho. 14 Sebtembar 2022 waxaa xarunta wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ku qaabishay safiirka dowladda Sweden Bell Lindgren. waxay ka wada hadleen kaalinta haweenka, ka hortagga tacadiyada iyo arrimaha xuquuqda aadanaha. 18 Sebtembar 2022 safiirka Mareykanka Larry Andre waxay wasiirka kulan ku wada qaateen xarunta safaaradda USA ee Muqdisho. waxay ka wada hadleen kaalinta haweenka iyo dib u xoreynta, waxbarashada carruurta iyo horumarinta xuquuqda aadanaha. 19 Sebtembar 2022 waxay booqatay xarunta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta. waxay kula kulantay wasiirka wasaaradda Sheekh Mukhtaar Roobob Cali iyo ku-xigeenkiisa, maadaama ay labada wasaaradood ay wada shaqayn leeyihiin. waxay isla meel dhigeen sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta labada wasaaradood, oo ayna isla qaateen oo ay ku ballameen shaqadaas wadajirka ah. 20 Sebtembar 2022 waxay xafiiskeeda ku qaabishay xubnaha iyo guddoonka hay'adda naafada qaranka Soomaaliyeed. waxay ku boorisay dardargelinta howlaha ay u hayaan dadka naafada ah. 21 Sebtembar 2022 gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayay kulan kula qaadatay xafiiskiisa. waxay ka shireen qorshaha haweenka nabadda iyo amniga iyo qaabkii caasimadda looga fulin lahaa iyo dhammaan qaabkii lagu gaarsiin lahaa degmooyinka gobolka Banaadir. 22 Sebtembar 2022 waxay wasiirka soo abaabushay kulan weynaha doorka haweenka nabadda iyo amniga. waxaa goobjoog ka ahaa wasiirada wada shaqaynta la leh wasaaradda, gudoomiyaha gobolka Banaadir, taliska booliska Soomaaliyeed, ururka haweenka qaranka,
kan gobolka Banaadir iyo haween tiro ahaan gaaraya ilaa 500 oo ruux. dhammaan hadaljeedinta mas'uuliyiintu waxay la xiriirtay dagaalka dib u xoreynta ee lagula jiro argagixisada qawaariijta ah. 24 Sebtembar 2022 waxaa kulan isugu yimid haweenka ka shaqeeya hay'adaha dawladda. kulankan waxa uu ahaa markii ugu horeysay ee la qabto noociisa. waxaa shir gudoominaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac. inta uu socday kulanka waxaa la isla gartay in la joogteeyo kulamadan oo bishiiba mar ama laba la isugu yimaado. 25 Sebtembar 2022 wasaaraddu waxay sii dardargelisay kuliyadda adeegga bulshada oo ay markii hore ka bilowday jaamacadaha ummadda Muqdisho iyo City. waxaa ka soo aflaxay arday badan. weliba waxaa farxad ah in dufcada 22aad ee jaamacadda Muqdisho ay kaalinta koowaad u gashay gabar ka soo qalin jebisay kuliyadda adeegga bulshada oo Safa Yuusuf Maxamuud lagu magacaabo. 27 Sebtembar 2022 gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa si rasmi ah u daahfuray barnaamijka mideysan ee xuquuqda aadanaha Soomaaliya. waxaa xubnaha ka qayb galay ka mid ahaa wasiirada dowlad goboleedyada gobolka Banaadir, bulshada rayidka iyo mas'uuliyiinta UNSOM iyo UNICEF. 28 Sebtembar 2022 daahfurka barnaamijka mideysan ee xuquuqda aadanaha Soomaaliya waxaa ka soo baxay warmurtiyeed ay u dhan yihiin wasaaradaha dowlad goboleedyada gobolka Banaadir, ururada haweenka qaranka iyo gobolka Banaadir. 2 Oktoobar 2022 kulanka haweenka dib u xoreynta ayaa xafiiska waxay wasiirka kula qaadatay xubno ka kala socday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, taliska booliska Soomaaliyeed, maamulka gobolka Banaadir, ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo ururka haweenka gobolka Banaadir. waxay uga wada hadleen kaalinta haweenka ee dagaalka lagula jiro qawaariijta. 3 Oktoobar 2022 wasaaradaha awqaafta iyo arrimaha diinta iyo haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa kulan wada jira waxay ku qabteen tiyaatarka qaranka. waxaa loogu magac daray xuquuqda carruurta iyo haweenka iyo doorka haweenka Soomaaliyeed ee dib u xoreynta. 4 Oktoobar 2022 marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sahra Cumar iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar ayaa ku hogaamiyay haweenka Soomaaliyeed halganka dib u xoreynta. waxay kormeereen halka ay gabdhaha Soomaaliyeed sahayda ugu diyaarinayaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib u xoreynta ee dagaalka kula jira qawaariijta. 5 Oktoobar 2022 haweenka Soomaaliyeed waxay isla qaateen Operation 3G oo ay hal abuurkeeda lahayd taliya ku-xigeenka booliska Soomaaliyeed Generaal Sakiye Xuseen, waxaana uu micnihiisu ahaa laa guri laa goof walaa guur. 10 Oktoobar 2022 marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sahra Cumar ayaa xiratay dareeska ay caanka ku yihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ah hooyada ciidamada qalabka sida, waana dhiirigelinta ugu weyn oo ay sameeyeen haweenka Soomaaliyeed. 11 Oktoobar 2022 mas'uuliyiin oo ay hogaaminayso gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo u badan hoggaanka haweenka Soomaaliyeed ayaa gaaray degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan. muhiimadda gaarista halkaas waxay ahayd sidii loo dhiirigelin lahaa ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib u xoreynta ee halkaas dagaalka kula jiray qawaariijta. waxaa la gaarsiiyey 10 neef oo geel ah, 450 neef oo ari ah, cunno fudud, saliyaal, sansariyaal iyo agab kale. 16 Oktoobar 2022 marwada madaxweynaha iyo kusimaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa wada booqday isbitaalka xoogga dalka. waxaa halkaas ku jiray ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib u xoreynta oo ku soo dhaawacmay dagaaladii ugu dambeeyay ee lala galay qawaariijta. 20 Oktoobar 2022 waxay wasiirku ka mid ahayd xubno wasiiro oo beledweyne kaga sii horeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre, waxaana ujeedka u ahaa gurmad Hiiraan. 23 Oktoobar 2022 waxaa Muqdisho ay kaga qayb gashay wasiirka xuska 22 sano guradii ka soo wareegatay markii la ansixiyay qaraarka qaramada midoobay ee 1325 oo ah haweenka nabadda iyo amniga. waxaa soo qaban qaabiyay xafiiska UNSOM. 24 Oktoobar 2022 iyadoo ay garbaheeda taagan yihiin maamulka gobolka Banaadir, taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed, ururka haweenka qaranka iyo ururka haweenka gobolka Banaadir ayaa waxaa warbaahinta qaranka ay wasiirku kaga dhawaaqday haweenka iyo sugidda amniga caasimadda. 25 Oktoobar 2022
waxay shir gudoomisay kulanka guddiga wadajirka ee xuquuqda aadanaha waxaa ka qayb galay xubnaha safaaradaha caalamka ee xuquuqda aadanaha kulankan ayaa diiradda lagu saaray in si dhaqso ah loo qabto howlaha horumarinta xuquuqda aadanaha 26 Oktoobar 2022 Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay kulanka mashruuca nabadda iyo u helinta haweenka oo wadajir ay u qabteen UNDP iyo wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxaana uu socday muddo 2 maalin sidoo kale isla maalintaas waxaa tababar loo soo xiray gabdhaha booliska Soomaaliyeed ee loo diyaariyay howlgallada sugidda amniga caasimadda oo ay hogaaminayaan haweenka Soomaaliyeed 27 Oktoobar 2022 waxaa la kulmay bulshada rayidka ee haweenka Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda waxaa kulankan uu ahaa la tashi ay kala sameeynaysay dardargelinta dhismaha guddiga xuquuqda aadanaha siyaasadaha iyo shuruucda kale 29 Oktoobar 2022 xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa kulan ku qaatay wasaaradaha amniga haweenka iyo warfaafinta waxaa kulankaasi hordhac u ahaa diyaarinta daafurka sugidda amniga caasimadda iyo wacyigelinta fikirka qawaarita marka kulankaas laga soo baxayna waxaa dhacday musiibadii weyneed ee Soobalaba 31 Oktoobar 2022 ku dhawaad 100 qof oo shaqaalaha wasaaradda ayaa u dhaqaaqay isbitaalka Dimartino si ay dhiig ugu shubaan dadka ku dhaawacmay qaraxyadii Soobe isla maalintaas waxaa agab kala duwan la gaarsiiyay isbitaalada Dimartino Madiina iyo Digfeer oo ay yiileen dhaawacyada musiibadii Soobalabo 2 November 2022 wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxay xafiiskeeda ku qaabishay hay'adda UN Women iyo sidoo kale hay'adda UNDP waxay ka wada arrinsadeen shaqo wadajir oo ay dhinacyadu lahaayeen waxaana la isla gartay in la xoojiyo shaqooyinka iyadoo gacanta kalena lagu gurmanayo 4 November ee isla sanadkan waxay wasiirka wasaaradda booqatay isbitaalka ee magaalada Muqdisho oo ay ku jireen qaar ka mid ah hormuudka haweenka gobolka Banaadir kuwaas oo ku soo dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe waqti ay ka soo laabteen dhiirigelinta ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dib u xoreynta ee dagaalka ka wada gobolkaasi mid ayay dhaawacyada u dul istaagtay inta kadib maamulka isbitaalka ayay ku wargelisay in ay si buuxda u damaanad qaadayso wax walba oo ku baxa caafimaadkooda isla maalintaas waxa ay kulan la qaadatay haweenka bulshada rayidka ah waxa ayna kala hadashay arrimo la xiriira lafagurka shuruucda iyo siyaasadaha loo dejinayo haweenka caruurta iyo dadka baahiyaha gaarka qaba intaba waxaa kulankaasi ka dhacay xarunta SWDC ay ku leedahay magaalada Muqdisho 9 November waxay wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye ay kulan kula qaadatay magaalada Jabuuti ee xarunta waddanka Jabuuti dhigeeda Muna oo ay ka wada hadleen xiriirka labada wasaaradood iyo qaabkii ay shaqada isaga kaashan lahaayeen intaas kadib waxaa kulan soo dhaweyn u sameeyay urur weynaha haweenka Jabuuti iyo sidoo kale garwadeenka horumarka haweenka Jabuuti marwada koowaad ee dalkaasi Khadra Maxamuud Xayt wasiirka ayaa intii ay ka mid ahayd wafdiga ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ee ku sugan waddanka Jabuuti waxa ay salaan ugu tagtay madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle 16 November waxay ka qayb gashay kulan sanadeedka guddiga qaran ee hagidda diiwaangelinta madaniga ah iyo statistics-ka muhiimka ah waxaana kulankaasi soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu hormuudka ka yahay wasiir Axmed Macalin Fiqi 20 November waxa ay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha soo qaban qaabisay xuska maalinta caruurta adduunka iyada oo wasiirka maalintaas la qaadatay caruurta Soomaaliyeed kuwaas oo dareemayay in ay maalintooda uga dhigan tahay maalin taariikhi ah marka la eego maamuuska ay siisay wasaaradda xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa dhambaal hambalyo ah u dirtay Professor Ali Yaasiin oo xubnaha golaha wasiiradu ay u magacaabeen gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee Soomaaliya Ali Yaasiin ayaa waqtigaas xilka uu u dalacay waxa uu ahaa agaasimaha qorsheynta ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya 26 November waxaa magaalada Muqdisho laga daafuray 16 maalmood ee ololaha tacadiyada ka dhanka ah haweenka caruurta iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxaana ay socotay intii u dhaxaysay 25 November ilaa 10 December
29 November waxay wasiirka ka qayb gashay kulanka wadatashiga dib u eegista istiraatiijiyada qaran ee xasilinta iyaduna waxa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha oo ka mid ah wasaaradaha wada shaqaynta dhow ay leeyihiin wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha 3 December ee sanadkan 2022 waxa ay wasiirka hadal jeedin muhiima u jeedisay dadka Soomaaliyeed ee qaba baahiyaha gaarka ah waxayna ku asteesneed munaasabadda maalinta naafada adduunka waxaana ka qayb galay kulankaas ay soo qaban qaabisay wasaaradda oo ay qayb kala ahayd hay'adda naafada qaranka ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre 5 December ee isla sanadkan waxay wasiirka la wareegtay gaari u ereg ahaan u haystay Dr. Deeq Suleymaan oo mar soo noqday agaasimihii guud ee wasaaradda haweenka markii dambena noqday agaasimihii guud ee wasaaradda dhalinyarada taas oo dhowr toddobaad ka hor uu ka tagay waxayna kala wareegtay gaariga uu eragta kaga haystay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isla maalintaas waxay hadal dhiirigelin ah u jeedisay sidoo kalena ay ka hadashay doorka haweenka ay ku leeyihiin dagaalka dib u xoreynta barnaamijka kacdoonka shacabka oo ah barnaamij dhawaan laga baahiyay ama laga bilaabay SNTV Daljir taasoo iyadoo lafta ahaanteeda dhawaan loo sameeyay in ay dardar geliso arrimaha la xiriira dagaalka lagula jiro qawaarita waa cusub oo u bariyay warbaahinta ayaa ahayd inuu soo kordho SNTV Daljir isla maalintaas 5 December waxa ay kormeer ku sameysay xafiisyada wasiirka wasiir ku-xigeenka wasiiru dowlaha iyo agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha taasoo hadda uu ka socdo dib u dhis oo ay ku casriyeynayso wasiirka cusub ee wasaaradda haweenka xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye 10 December waxa wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ay xustay munaasabadda maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha waxaana ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre waxaana lagu soo xirayay 16 maalmood ee ololaha tacadiyaadka haweenka carruurta iyo dadka naafada oo socotay intii u dhaxaysay 25 November ilaa 10 December inta waxa ku dhan barnaamijkii gaarka ahaa ee 100 maalmood iyo waxqabadka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya